in ciidanka lafta gareen lagu arkay xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ugana sii gudbeen suuqyada waaweyn ee magaalada Baydhabo oo ay ka dukaamaysanayeen marka degdeg ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen ayaa guud ahaanba la wareegay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana haatan qaybo ka tirsan magaalada lagu arkayaa ciidamo fara badan oo markaasi ka amar qaata Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen hub iyo sidoo kale gawaari fara badan ayay la soo galeen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaba sidee ayay ugu suurta gashay in Cabdicasiis Laftagreen ciidankiisa isaga iyo sidoo kale hubkiisa ay soo galaan xaafado ka tirsan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa markaasi sababta ugu weyn oo markaasi ay u soo galeen iyadoo haatan markaasi qaybo ka tirsan xaafadaha ay guud ahaanba la wareegeen xog iyo sidoo kale macluumaad arrinkaasi ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa balse tabinteena tooska ah ee muuqaalka intaan u gudagelin haddii ay tahay marka kugu horeysay aan soo booqato subscribe waa inoo muhiim like muuqaalka meel dheer ayay gaarsiisaa share waa muhiim fikirkaaga qaybta hoose ee faallada noogu reeb waxaan kaloo kula wadaagi doonaa markaasi taliye shub oo isaguna markaasi abaabul xoogan ka wada magaalada Baydhabo ee xarunta markaasi ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana haatan xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno ay warinayaan inuu markaasi si toos ah ugu soo biiray dagaalka isagoo haatan markaasi garab toos ah u noqday madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen waxaan kula wadaagi doonaa markaasi abaabulkan oo ka wada duleedka magaalada Baydhabo iyadoo haatan ciidankii ugu badnaa oo markaasi ka tirsan kuwa markaasi daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu arkayo qaybo ka tirsan xaafadaha magaalada Baydhabo haddii aynu u gadagulno markaasi tabinteena tooska ah xalay ilaa iyo sidoo kale saakay waa berigii hore waxaa magaalada Baydhabo lagu arkayaa ciidamo markaasi ka tirsan ciidankii markaasi taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen oo dawladdu ay xoog ugu saartay gudaha magaalada Baydhabo ciidankan waxay ka soo ambabaxeen duleedka magaalada Baydhabo waxayna haatan markaasi ku sugan yihiin gudaha magaalada iyagoo markaasi shacabku ay warinayaan in xaafado ka tirsan magaalada Baydhabo ay ku arkayaan ciidanka marqaata Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen wax dagaal ah ma uusan ka dhicin gudaha magaalada Baydhabo haddana waxaa suurta gashay in Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen ay ciidankiisu gudaha u soo galaan magaalada Baydhabo aadan madoobe oo haatan markaasi walaac xoogan ka muujiyay soo galista ciidanka Laftagreen ayaa haatan lagu soo waramayaa inuu markaasi garab military weydiisanayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waxa uu leeyahay waa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay naga soo gaartaa maadaama ciidanka Laftagreen oo markaasi awood military markaasi ku soo bandhigay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidanka uma muuqdaan inay ku sugan yihiin duleedka magaalada Baydhabo tulees ayay u soo galeen magaalada waa ayna ka dukaamaysanayaan iyagoo markaasi waxa ay doonayaan magaalada Baydhabo ka samaysanaya xaafado ka tirsan magaalada Baydhabo ayaa lagu arkayaa ciidanka taabacsan Laftagreen oo markaasi roondo ka sameynaya xaafado ka tirsan magaalada Baydhabo iyadoo dhawaan ay ahayd markaasi ciidankii dawladdu in ay markaasi dhufaysadii ay ku lahaayeen afaafka hore ee duleedka magaalada Baydhabo ay guud ahaanba markaasi ka soo baxeen iyagoo haatan markaasi ku soo biishubtay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidankan waxa hogaaminaya markaasi waa awood aanan caadi ahayn markaasi u horkacaya wasiirkii hore ee amniga Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Xasan Cabdulqaadir afhayeenkii hore ee Cabdicasiis Maxamed Laftagreen iyo sidoo kale taliyayaal wasiiro hore oo markaasi ka tirsanaa xukunkii markaasi dawladdu ay halkaasi ka saartay waxa markaasi iyaguna ciidankan qayb ka ah taliyayaal sarsare oo markaasi ka tirsan ciidankii daraawiishta ee markaasi ka gadoosan hab xukunka aadan madoobe iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ciidankan ayaa iyagu waxa ay la soo warinayaan inay ka soo ambabaxeen duleedka magaalada Baydhabo iyagoo si toos ah u soo galay xaafado ka tirsan gudaha magaalada Baydhabo shacabku ayayna ku wargeliyeen markaasi in ay ka foojignaadaan in markaasi aysan ka bixin guryahooda si aysan markaasi waxyeello aysan u soo gaarin markasta dagaalka laga filan karo in uu ka qarxo gudaha magaalada Baydhabo
shacabka ayaa waxaa soo food saartay cabsi iyo sidoo kale walaac aad u xoogan. Waxayna ka cabsi qabaan in marba marka kasii dambeysa baydhabo uu markaasi ka qarxo dagaal culus una dhexeeya ciidanka taabacsan ama ka amar qaata hogaamiyihii hore ee koonfur galbeed lafta garan iyo sidoo kale kuwa dowladda ee ku sugan gudaha magaalada baydhabo, iyadoo haatan markaasi xogo iyo sidoo kale macluumaad kala duwan laga soo warinayo gudaha magaalada baydhabo. xaaladdu aad ayay u qasan tahay, sidoo kalena shacabku waxaa wejiyadooda ka muuqdo walaac aad u xoogan, iyadoo haatan markaasi ay isdhex mushaaxayaan ciidankii taabacsanaa lafta gareen iyo sidoo kale shacabka reer koonfur galbeed. ciidanka dowladduna qaybahooda kale ayay ku sugan yihiin, lafta gareen ciidankiisuna qaybo ka mid ah magaalada baydhabo ayay ka dukaamaysanayaan. waxaana haatan lagu soo warramayaa in markaasi ay tartiib tartiib ay magaaladu u soo galayaan ciidankii ka amar qaadanayay ninka lagu magacaabo lafta gareen. dhinaca kalena haddii aynu eegno taliyihii hore ee ciidanka asluubta genaraal shub ninka lagu magacaabo oo sodog la ah madaxweynihii hore ee koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen, isaguna abaabul xoogan waxa uu ka wadaa duleedka magaalada baydhabo, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa gobolka gedo oo halkaasi ka soo abaabulayay dagaal iyo sidoo kale markaasi qorsho halis ku ah aadan madoobe iyo sidoo kale hogaamiyaha markaasi cusub ee dowladda koonfur galbeed. dagaalkan ayuu si toosa ugu soo biiray, isagoo haatan garab iyo sidoo kale gaashaan u noqonaya lafta gareen. waxa uuna markaas haatan gaashaanka u duruurayaa in dagaal toosa uu ka qarxo gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. ninka lagu magacaabo shub waxa uu markaasi taageero u ahaa hogaamiyihii hore ee koonfur galbeed lafta gareen markii awood looga saarayna dowladda dhexe ee soomaaliya xilkii waa ay ka qaaday, iyagoo markaasi xabsi guri ugu dhigtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. wixii intaasi ka dambeeyey shub waxa uu markaasi u ambabaxay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya, halkaasi oo markaasi kulamo kala duwan uu kula qaatay hogaamiyihii koonfur galbeed ninka lagu magacaabo lafta gareen. halkaasna ayay ka soo abaabulayaan qorsho halis ku ah aadan madoobe iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya, iyadoo marba marka kasii dambeyso ay lasoo warinayo in ciidan fara badan ay kusii qulqulayaan duleedka magaalada baydhabo, iyagoo markaasi si toosa ugu beeraya ciidan ka amar qaata hogaamiyaha markaasi hore ee koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen. xaaladdu ma sahlana, marba marka kasii dambeysana baydhabo waxaa laga filan karaa in markaasi uu ka qarxo dagaal aad u culus una dhexeeya ciidankii taabacsanaa lafta gareen iyo sidoo kale ciidanka markaasi ee ka amar qaata hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka markaasi koonfur galbeed ninka lagu magacaabo sheekh aadan madoobe. waxaan uu wareysi toosa la sameeyey qof goobjooga ah oo ku sugan duleedka markaasi ama aan dhehe gudaha magaalada baydhabo, isagoo markaasi inoogu warbixinaya xaaladda ka soo cusboonaatay gudaha magaalada baydhabo iyo sidoo kale suurtagalnimada ciidanka lafta gareen ay u soo galeen isla gudaha magaaladaasi. ciidanka lafta gareen wax ishorstaag ah aysan la kulmin, si nabad ah ay magaalada ku soo galeen, si nabadaana markaasi ay ku adeegteen. qaarkood ayaa waxaaba ay gaareenba guryaha iyo qoysaskooda ayay la kulmeen oo ay booqdeen, islamarkaana waxyaabihii muhiimka ugu ahaa ay ka soo qaateen. ilaa hadda wakhtigan la taagan yahay oo aan kula hadlayo waxay xoguhu sheegayaan in ciidanka lafta gareen weli ay gudaha magaalada ku jiraan. ciidanka dowladda federaalka soomaaliya wax tallaabo ah aysan qaadin, si lamid ah kuwii daraawiishta ee garabka aadan madoobe dhankoodana aysan wax tallaabo ah qaadin. marka tallaabadan waxay muujinaysaa ciidanka lafta gareen ay gudaha ugu galeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay, in ciidankii ku sugnaa gudaha baydhabo ee dowladda federaalka iyo kuwii maamulka aadan madoobe iyagu kala qaybsan yihiin. marka laga soo tago kuwa aadan madoobe iyo saraakiisha hogaaminaysa iyo kuwa federaalka inay kala qaybsan yihiin oo aysan kala amar qaadanaynin, xog wadaagaynin, ciidankii federaalka dhexdiisa ayaaba wararku waxay sheegayaan in khilaaf uu ka dhexeeyo. oo sidaa la socota habeennimadii xalay ahayd mid ka mid ah saraakiishii federaalka lagu dhaawacay gudaha magaalada baydhabo oo qorshaha uu ahaaba in la qaarajiyo oo shirqool lagu dilo. marka tallaabooyinkaas dhammaan waxay fududeeyeen in ciidanka lafta gareen ay si nabadgelyo ah gudaha baydhabo caawa ku soo galaan. sargaalkaas ay dhaawaceen qaar ka mid ah ilaaladiisa, qorshahana uu ahaa shirqool loo soo maleegay oo loo diyaariyey. sargaalka waxaa lagu magacaabaa aadan dheere, ilaaladiisa ayaan ilaa hadda xogaha aynu helayno ay sheegayaan in markaasi ay dhaawaceen oo ay rasaas ku fureen, laakiin ma jirto ilaa hadda dhinaca dowladda federaal war ka soo baxay